kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa maalinimo Arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 28 bishii 7 2021 wararkeena maanta ee Boundless Media idinkugu haynana waxaa ka mid ah shacabka ku dhaqan dalka Mareykanka oo lagu wargeliyay xitaa dadka iska talaalay cudurka COVID-19 waa inay xirtaan waji xirka loo yaqaan face maskiga gaari ay al-shabaab qarax ka buuxiyeen oo isla ayagii ku qarxay guddiga doorashada Soomaaliya oo sheegay inay xalinayaan dhammaan khilaafaadka soo baxa daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan xarunta xakameynta ee kahortagga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa ku boorisay dadka Mareykanka ah ee si buuxda u qaatay talaalka cudurka COVID-19 inay dib u bilaabaan qaadashada marada ama marada afka lagu xirto ee loo yaqaan face maskiga marka ay joogaan goobaha ay dadka isugu yimaadaan. Hay'adda ayaa si gaar ah taladani u siisay dadka ku nool gobollada uu sida aadka ah ugu sii faafayo cudurka COVID-19 iyadoo adkeynayso tilmaamaha cudurka COVID-19 ay xarunta CDC si xoog leh carabka ugu adkeysay ahmiyadda xirashada maskiga ama marada afka lagu xirto in ay u leedahay xilligani ardayda macallimiinta iyo shaqaalaha ka shaqeeya iskoolaadka xanaanada carruurta ilaa iyo fasalka 12aad kuwaasi oo ay xarunta sheegtay inay xirtaan afdaboolka haddii ay talaalan yihiin iyo haddii kaleba. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhowaan sheegay in aysan ku tala jirin inay dib u soo celiyaan xayiraadihii sanadkii tagay ee 2020 ee cudurka COVID-19 balse ka codsaday dadka Mareykanka ah in ay qaataan talaalka cudurka laga hortago. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay gaari la sheegay in ay laga soo buuxiyay walxaha qarxo oo ku qarxay deegaanka Cumaad ee gobolka Hiiraan. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Inji ayaa tilmaamay in gaariga laga soo buuxiyay walxaha qarxo uu raggii watay ku qarxay isla deegaankii laga soo abaabulay. Sidoo kale wuxuu sheegay gudoomiyaha in gaariga qarxay ay al-shabaab ku soo rareen qaraxyada ay u wadeen deegaanada ay la wareegeen saacadihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Hiiraan ee Shabeelle isla markaana uu ku qarxay isla shabaabkii watay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan ayaa intaasi ku daray in khasaare xooggan uu qaraxaasi ka soo gaaray xubnihii al-shabaab ee gaariga watay. Ugu dambeyn wuxuu xaqiijiyay inuu sii socon doono howlgallada ciidamada ay ka wadaan deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Matabaan iyo Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Afhayeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan inay si cadaalad ah u xaliyaan khilaaf kasta oo ka soo laabta doorashooyinka dhacaya ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wuxuu intaasi ku daray in xubnaha guddiga ay goobjoog ka noqon doonaan goobaha ay ka dhacayso doorashada isla markaana iyagoo raacaya shuruudaha ay soo saareen golaha wadatashiga qaranka xalin doonaan dhammaan khilaaf ka yimaado. Waxa uu ku baaqay in lagu dadaalo in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo aysan dhicin doorasho la kala jiito isagoo sidoo kale ku baaqay in la shaqeeyo guddiga doorashooyinka iyo ciidamada amniga doorashada sugaya kadib markii ay gaaraan magaalada Kismaayo. Wafdiga uu hogaaminayay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashada Soomaaliya ayaa maanta ka baxay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyagoo gaaray magaalada Kismaayo si uu goobjoog uga noqdaan doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu qorshuhu yahay bari ka dhici doonto magaalada Kismaayo. Howlaha doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan ka bilowday gobollada dalka Soomaaliya iyadoo ay socdaan diyaar garowgii ugu dambeeyay waxaana maamulka Jubbaland uu noqon doona maamulkii ugu horeeyay ee qabta doorashada aqalka sare ee Soomaaliya. Daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinkaga haynay. Waxaa idin akhrinaya oo idin soo saaray anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. intaan barnaamijka mid la mid ah aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah.